xafladan ayaa waxaa soo agaasimay taageerayaasha musharax u taagan golaha deegaanka magaalada Helsinki Mukhtaar Xabiib oo kamid ah siyaasiyiinta iyagu u taagan inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee dalka Finland. Haddaba si aanu wax uga ogaano xubnihii orahadoodii ka dhiibtay xafladaasi ayaa waxaa kamid ahaa waxaan meeshan u soo istaagnay sida hadalka ninka walaalkeena uu sheegay in aan walaalkeena Mukhtaar arintu wato in aan la garab galno aan la qabanno ilaahay umba wax kaalmeen kara marka waxaan dhihi lahay inaan isku kaashano on codka sidoo asaga damacsiin ilaahay umba laga heli karaa yani in aan ku kaalmeeno intayna aan Soomaaliyeed meesha u joogno aan ku taagna bismillaahir rahmaanir rahiim maanta halkan waxaan isugu imaanay maaragtay in Mukhtaar walaalkeena maaragtay loo codeeyo annaga ahaan horta masaajidadii iyo meelihii oo Soomaalida oo dhan in badan aad looga taageeray sababta loogu taageeray waxay tahay labadii sano ugu dambeysay horta masaajidadii meelihii salaadaha lagu dukanayay inta badan asaga soo qabtay oo lacag badan ay ku bixi jireen marka annaga aan Soomaalinahay waxaan u baahanahay qof arrimaha bulshada maadaama annaga aan nahay dad waddan ku nool caruurna haysto arrimaha bulshada qofkii naga saaciday in annaga naftirkeen aan taageerno أنا هذا البين يقوم يجرو مختار أبي بوحنا سرجون وده كان مدة لبلاد سنوات طبعا كي سنة ودن بيسي وده شغال ما نقدر هيسي أنا محمد عام هاك الشغال قيبت الدليروة مقالة هلسنكي الوحياة بدون أنا حلني بجرته المال بدون وكيل قريبة جري دكس قرآن أما لك سكرها بس معنوح وين قفك الصومالية وحدين قبلية أنا قرب سيسوي sida arrimaha bulshada wasaaradda waxbarashada sooshalka iyo qaybta dhalinyarada waa meelaha kaliya muhiimka ah oo baahna hadii aynan arrimahan qofka walaalkiina wax idin qabanay inay ku taageerin tahadhowtu waxun baa ka iman karaya kulli waxaan dhihi lahaa ninkan walaalkay waxa uu qabtay uma baahna sharaxaad wax badan uu naga caawiyay haddana waxaan dhahaynaa walaalkay kuma xaqirayno waxyaabaha ay qabatay waxaan ku rajaynaynaa guul insha Allah khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore horta waxaan rabaa inaan mahad u soo jeediyo dadkii soo abaabulay barnaamijkan ee intii naas qof ee Soomaaliyeed ee waqtigiisa qaaliga ay soo lumisay aad iyo aad baad mahadsantiin maalintii aan campaignkan ama ololahan bilaabay anigu ismaan lahayn waxaan noqon doontaa dadka sharaxan ama Soomaaliha ahaadaan ama ajnabi ha ahaadana Helsinki ka sharaxan dadka ugu cadcad laakiin waxa ii xaqiijiyay markaan garbahayga ku arkay Soomaali nooc kasta leh qabiil kasta leh gobol kasta ka timid haddaad fiirisaan aniga dadka ii ordaya Soomaalida ama basila ha joogo ama itaakeesku sa joogo ama kontul ha joogo waxaan ehelnahay kuma jiraan waxay u ordayaan ma aha Mukhtaar Abiib waxay u ordayaan waa Soomaali 85 ka xubnood ee golaha deegaanka Helsinki ku jira yaa Soomaali ah oo munaasib ah oo dadkan u dhaxayn kara oo meesha u fadhiisan kara oo matali kara markaad meesha godka bahasha lagu riday aad tagto saan idin sheegay waxba hay dareenin please waxaan idinka bariyaa oo qura haddaad istiraado Mukhtaar Abiib waa nin Soomaaliyeed oo imatali kara codka siin ha igu siin aniga ninka isku qabiil baan haddaad taa ku fikirayso qofka doonta siin haddii aad laakiin Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo muslimnimo aad waad mahadsantahay xafladan ayaa ku soo ilaatay jawi aad u wanaagsan iyadoo xubnihii xafladaasi ka qayb galanay ay sheegeen inay codkooda ku taageeri doonaan musharax Mukhtaar Xabiib oo u taagan golaha deegaanka magaalada Helsinki waxaana uu ka mid yahay xisbiga ay ka mid yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Finland Maxamed Bashiir Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Helsinki Finland